kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka toddobaadlaha ah ee aragtisan iyo ogaal dadweyne. Barnaamijku waa barnaamij toddobaadlaha alaba waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Sagal Siman Xasan Maxamed. Barnaamijka wuxuu si toos ah idinkaga imaan doona toddobaadkiiba xiliyadan oo kale warbaahinta City xarunteeda dhexe ee magaalada Jowhar ee caasimadda dawladda goboleedka Hirshabelle. Barnaamijka maanta waxaan sidoo horta hadba waxaan ku soo qaadanaa qodobka xasaasiga ee markaasi taagan toddobaadkan barnaamijka waxa miiska inuu saaran fatahaada webiga Shabeelle ka sameeyay dawlad goboleedka Hirshabelle oo idil sida aad la socoteenba webiga Shabeelle wuxuu muddo ku dhawaad bil ah fatahaad ku ahaa magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle isagoo sababay barakacaad u balaaran oo markaasi wali aan laga soo laabanin haddana isla webiga Shabeelle waxa uu ka sameeyay mardhow magaalada Beledweyne ee caasimadda Hiiraan marka hadda waxaana ka wareysanay sida markaasi ay wax uga og yihiin ugu horeyn gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Maxaday sidoo kale mid ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana inoogu warameen sida tan ما سنتين معركة تي في معركة سومالي سيتي راديو هذا ما سنتين أما بعد ذلك وحقيقة تهاي وحس هذا ما سنتين كلك وعواي معركة غاش علوس والبولشويت وهاي ستين هاد ما أنت يقعد سنيسان لبعتها كجرت معركة هيرشبيل استيد قار عن قبل كشبيل هذا يفتح هذا وبيج الشبيل هذا إنزين كسر ما هاد علينا dhibaatada ugu culusna ay ka jirto maaragtay degmada Jowhar in kastoo degmooyin kale inta ay wax ka taabtaan sida maadayo kale inta maad balaaran ay wixii iga weydiisana waa idinka sii kara insha Allah khair aad dumaadsan tahay mudan gudoomiye waxaan hadda xaaladda xasaasiga ay ka taagan Hirshabelle ay tahay maalmahanba sidaan wada ognahay ama Soomaalida dhanba ay wada og tahay webiga Shabeelle wuxuu fatahaad aad u balaaran ka sameeyay magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle fatahaadaas oo barakac aad u weyn sababtay haddana isla maalintan maanta ah saake wuxuu ka sameeyay magaalada Beledweyne sidaan wada ognahay marka Hirshabelle maxaa u dambeyn doonad isleedahay هذا idinka mahad celina horta waa cawaaye Hirshabelle nasiibkeeda ay noqotay fatahaada inay caadeysato oo webiga Shabeelle balse dadaal uma yara howlahan hool oo ma aragtay guwaan hadda webiga ah oo hadda socdo dhibaatada ka taagan tahay fasalaada badana ku horeeyay oo ilaa 3 ilaa 4 sano gaarayo xoogeedii horna ka soo bilaabday ma aragtay gobolka Hiiraan oo dhamaantiis biyaha ay caymeen sanadihii hore inkastoo ma aragtay duulaan xoog leh oo ma aragtay heer federaal iyo heer caalami iyo ma aragtay adduunka intii dan qato ama intii ma aragtay NGOs caalami ama hay'ad caalami ay xoog saareen andana waa cawaaye gogol dhiga oo waxoogan waxay ka dilaacday gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan midkan hadda socdo oo ku dhawaad bil socdo waxaana nasiib daraa waxay ka bacdi ba aragtay tuulada Baarey oo bil ku dhawaad hadda socoto kalka gurmad caalamiga jira maleenay ma aragtay wasaaradii musiibooyinka qaranka tilaabo ka soo qaaday maleenay laakiin ka Hirshabelle ahaan ma aragtay gobol ahaan ka degmo ahaan waxay noqotay amuuro ay isku tashadaan bulshadeynta gobolka Shabeellaha Dhexe siiba degmada Jowhar iyadoo fatahaadaasna ka soo bilowday cunudkeedana ahaa degmada Maxaday Shiidla Baray Baareydan waa tuulada Baarey la leeyahay mooyko oo bii gaareen ilaa oo xad lamada dhinac ee ma aragtay dabadka ma aragtay degmada oo Jowhar gobolka Shabeellaha Dhexe oo xarinta caasimadda Hirshabelle ah in ilaa hadda dayaara wax ku yimaada maahno ummadii danyarta eedo masaakiinta eedo ma aragtay xoogsatada eedo ma komershaalaha eed ayna biya dhinac waqooyi iyo koonfurba ay ka kala gooyeen oo dhibaatadaas wax u soo gurmale ay iska yar yihiin balse xilqaan ka yimid dawladda Hirshabelle iyo ma aragtay gobolka iyo degmada iyo bulshada tuulooyinka ku nool webiga labadiisa daan bari iyo qoraxsinba ilaa haddana hooshii ka socoto heer ay gaareen beriyaal iyo adduun iyo jawaan iyo caro oo xataa ma aragtay awoodii biyaha xijinteeda ay dhawaato weyn ka taagan tahay shalay maana daraad oo ma aragtay oo bisha 3 iyo 22 iyo 2 iyo 22
حتى دونتي دمد إن برتمها كده حقه خوده أو كسعده أنت اللعبان أو إسكتهاي إن يروى ما أركت إلى 6 متر إلى 7 متر عن كبدنا بل سمعت اللي جوه أنت بكسير حوق سلو ساري تازنا وحمد بلارن لاقى علينا يا هرشبل يستد قبلك الدقمة الجوهر يبول شوين تبيبقى دانكي صدقن بري يا خرحسن أو إسعى الخامي يا أقون عليه أو بأكل بحسني ولبا بيرالي يحولالي ولبا سيبا ددك أو فرسمد يا معلمين تهجد يا هجاجنت أو معلم كوكا أس تكنيكال أو معركة عدها دين كدقو أي أبديهن أيغنا فرح كوهايو وعي مسؤولية أما هنتلا أو معركتي هوش أسهل كذا وضو هرشبيل أمدي وكيلتي أو دقالة قلنتي وعيدا فرح كوهايو هوش أنا سفي أنا أسعتاي بل ما تهدي قبو من سي رجوين لغا خبو إلا بري اللي سو قبو دو انت سورني قسينينا بلش وعنباق عالمية إيو هير فدرال إيو هير شبيل أو جيدنا يا خابك هدا أو وحكو السعودان أو ما أركتي حالنت إيونت فتحات هذا وبيجي دانكي سلم هذا لنا كبحايو وحي أوربت أيو باهنتاي هي عالمية مشاريع بلارن أولو مدح بنان يهي أو بيبلوح لسالو ددك الديغان كدقو أو بيراليدا أو لبدا تولا كوبان أو ما أركتي إن بلفا وحلي راهو ما أركتي بلافيتا إن لسلو وبيجي ميز بكدبي عسن يهي تكنيكال أهان أيغا فرها لو قديو هانتدن اللي مسوغن دخال أهان لقليو لو مدح بنيو لكن أنا كوكو معمولا يعليس كذا اللي aadaad u mahadsantihiin waxaanu ku kalsamahay bulshadeynta deegaanta beeraleyda ee lamada webi oo lamada webiga jiinkiisa lamada dhinac ka dago inay hana karaan waa hadii dhaqaale maaliyadeed loo sameeyo ilaa baladweyne ilaa shabeellaha dhexe ilaa xadka afgooye inay dadka beeraleyda ayaga xakameey karaan laakiin anaa kugu hogaaminaya dhaqaalan ku tasruufa adiga ismaamul hadii na dhihin culeyskeeda wiliga too joogtay ahaanaysaa too cusubna ma aha هورينا وأصول عادي بركة قبلة ما أركتي أو دحى ما لبدنا لبعض الراب كده واحد كسر كده لكن قرمت كيا أو ما أركتي قبلة داس أو لو فيليو شبيلة هدحى هير شبيلة استد واللي تاكلين بوحدة اللي جمسيني ما يهنت داس مساعدنا ما نخان ما أركتي وزارة ما أركتي مصيبة يمكن تلعب كم خادم ما إراكرنو ما نكون دوانو وحسن غفر النوم مسؤولين تا حلكة هير استيد هايو او هير شبيلة هير قبل يا وزارة مصيبوينكا او هير فدرال او دخالها كل حيو او هوش اي حساباتك كل حيو كلكا وعن دقايا انك دقايا دوكومنت اسل حساب تقع او دخالك وقمو مع مشروعي بيعرينك او بيبقى الشبيلة لبدي سدان من جلالقسي الا بلعت أو كن فينا أفجوي كوجو معاك بخبصامي لونا مدح بنايا وزارة بيرا يا ورابك هيرشبيلو أو حق حقوق له إذا الله حلساده ساسين وحكتور سكران آدات أماسنتين صالح فليل الحاجي الفليل وليلة قدوم يكو حقا كاريمها برشيد إدك مدى مهدي وحكرا الله قلاب مدى aad u mahadsan tahay hal su'aal ما نيهر بغضة ترى حتى كسعته ودرعيس برفل بلدوينها ساكي أكو عصبنا برفل ساكي بيكو aad u mahadsan tahay mudane gudoomiye dad bulshadeynta hadda magaalada caasimada ah ee Hirshabelle ee Jowhar hadda waxaad u rajeysay inay meel fiican wax u marayaan hadda maanta soo idlaanina ay bari soo idlaanayso insha Allah sidoo kale hadda waxay fatahaad saaka ka dilaacday tuulada Burfule iyo baladweyne maxaad u rajeynaysaa bulshadeynta halkaas ku dhaqana مد بلدوينة عندهم كور مرة بلدوينة ومعلمينتي فتحات أو خبيرة أو هاي أو يخاني أو عليس كوين بكودي هرميها كسب بلاودي وعن ورجينا يا إنه لقوا عن سيو كهير شباب أهان دخل مالي تلقيليو أما عالم كهلا كانوا أما جودها أما جناع ستدا أنتي وحجرت أو حايسته إن لو جرمدو أيان كرجينا بلدوينة إسلام مركز مد بورفولو أو هذا ساك عصب إذن وعن لاي هيرشبيل أبوديدا ها أسوق جيسو بورفولة أنت كبخديو هذا الشيء جايو إذا الله فربانينايو دخاله إيه كرمر
joogto siday sameeyeen madaxweynaha hirshabeelle guudlaabe wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka gobernatooraha ma aragtay gudoomiyaha gobolka Axmed Faal iyo gudoomiyaha degmada Cusmaan Baarey oo ma aragtay dhiiqada daraad u dhaxdhafuuqsanayeen oo itus itaabsi oo gaareen taas oo dhaqaale lagu daro ayay waxaas ku toosi karaan boorfoolana waa in si degdeg loogu gurmalaa hanti dhaqaale oo ilahaas iyo jawaano sida inta loogu gurmido kaleento sidaasoo kale birihii alxanka wixii u baahan yihiin loo helo waana lagu qasban yahay waana in gacan ka geysaan ganacsatada ee gobolka Shabeellaha Dhexe weliba tan Jawhar inkastoo ogsoonahay miisaaniyadooda oo ma aragtay ganacsi inuu hoos u dhacday oo ma aragtay labadii erdooday wax ka soo galayeen waqooyi iyo ma aragtay koonfur siiba xamar oo wax ka soo galayeen dhaqaalaha ganacsatada oo hoos u dhacsan yahay waxaan soo kula talinaynaa dawladda gacan dheer heer federaal ha kaalmeestaano ayagoo siyaasad cusub waliba dhaxda aaga jiro taasna ilaahay asqiro ma aragtay mashruucaas oo adag oo dawladnimo oo rajiis asan la qaba ilaa bariga ilaa maanta inuu soo gabagaboobo gacanna ha ku dagaalamaano nabad iyo inta dawladnimo ha ku raadiyaano gacanta kale intana difaaca dalka siiba lamada gobol hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee hir state aad u maasantiin marka la kulan wanaagsan saaxiibayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka toddobaadlaha ah ee aragtisan iyo ogaal dadweyne barnaamijka sidoo kale waxa martii inoogu ah macallin Ciise Cali Boore waxaad nooga warantaa fatahaadaha waxaad ka ogtahay hadda Hirshabeelle sidaan la soconaba Jowhar fatahaado waxa ka dhacay sababay barakac aad u balaaran sidoo kale saakay waxa hadda fatahaad laga soo sheegayaa beledweyne marka maxaad ka ogtahay intaas bismillaah wasalaatu wasalaam ala rasuulillah magacayga markaan bilaawo waxa la yiraahdaa Ciise Cali Xasan fatahaadaha oo maaragtay gobolka Shabeellaha Dhexe khaasatan sida hadda midda Baarey iyo midda Moyko hadda la xiray iyo kuwa kale maaragtay sida Shiilabari oo kale wixii ka sii sokayo saameyn aad u weyn badan bay nagu yeesheen oo anaga hadeer waxaan nahay dad ganacsata ayaan nahay oo maartay magaaladii yaani waxayba noqotay magaalo la soo koobay amal ay noqotay oo maartay xagga ganacsiga sida sarafka oo kale sida yaani qodol dariiriyaadka oo kale yaani cir ka bay ku dhageen wax hada la goy karo male dadkeena wax la'aan baa iska haysa magarat aad u mahadsan tahay iyadoo wali ay socoto mid hadda ka baxday Baarey sida noo sheegtayba barakaceedana aan wali laga soo laabanin isla saakay haddana waxay ka furantay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan markii Hirshabeelle hadii Jowharna ay ka fatahaaday oo beledweynena ay ka fatahaaday maxaa u dambeyn doona isleedahay wallahi dibka kulay waxaan leeyahay aad buu yaani caqabad oo aad u weyn badan bay nagu sii noqon kartaa maxaa yeelay hadda magaalada Muqdisho hadeer way naga go'day ma aragtay ma lagu bixi karo oo ma aragtay magaalada Muqdisho dhinaceeda ebel hadda dadka waxay sheegayaan in lagu bixi jiray $10 iyo wax la mid ah laakiin hadeer waxayba noqotay sida dadka hadeer ay sheegayaan $20 iyo wixii la halmaalo hadda sida ganacsiga oo kale yaani saameyn aad u weyn badan bay nagu yeesheen hadda sidii midaaliyan oo kale wararkii ugu soo gaaray hadda qiimaha burka haafka oo burka ebel waxa la iibi jiray $320 hadeerna waxa la iibinayaa $440 baa la iibinayaa marka waxaan leeyahay qiimaha oo markaas hore oo la iibi jiray iyo qiimaha hadeer qiimo aad u badan baa dhexdooda dhex yaala bal kulay yaani waxaan u sheegayaa kulay maamulka oo maaragtay gobolka Shabeellaha Dhexe ka arimahaas yaani inay wax ay ka qabtaan oo dadweynihii xataa yaani arimahaas way saameeyeen dad oo waxa jiro iska masaakiin dad waxa jiro hadda biyaha ay barakaciyeen ilaa xataa maaragtay sida Koonko kale sida Daanyeeri oo kale sida Baarey oo kale yaani dadkana way iska dhibaataysan yihiin oo ebelba dadkii maaragtay waxa laga cabaadi jiray anyax oo baarihi galay haddana yaani waxaba ugu sii darsoomay maaragtay yaani biyo ba ugu sii darsoomay marka kulli xaalkana waxa malay doonaa yaani inuu xaalka si adkaanayo marka yaani ka hortag hadii laga sameeyay arintaas waxaan dhihi karaa kulli yaani in xaalka uu isbedeli doono saas baan leeyahay aad u mahadsan tahay adiga ka Ciise ahaan marka bulshooyinka reer Hirshabeelle maxaad u rajeynaysaa maadaama fatahaada aad u balaaran ay ku dhex jiraan
كل يعني هيرشبيل waxaan rajeynayaa yani ka hortag aad u weyn badan in la sameeyo sidii webiga kale ma aragtay dadka in qaaraama wax lamid in la sameeyo oo ma aragtay sida dadka ganacsatada kale in ma aragtay ka hortag la sameeyo ma aragtay webiga kale miisaalin oo kale waxaan arki jiray يعني markaan yaraa yani hubiga buuritaan baa lagu sameey jiray laakiin sanadahan waxaad mooday wixiiba in laga tagay oo sida daraadeedna yani fatahaadina ay aad u sii balaaranti laakiin ka hortag hadii la sameeyo kullee waxaan isleeyahay ma aragtay yani waa la ceymanaya hadii ka hortag la sameeyo hadaan la sameeynin kullee dhibka yani dhaxda baa laga jiraa ma garatay aad u mahadsan tahay waa mid kamid ah bulshada ku dhaqan dawlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan degmada Jowhar ee caasimada dawlad goboleedka Hirshabelle oo nooga waramaya fatahaadaha iyo saameynta ay ku yeeshatay magaalada Jowhar ee caasimada dawlad goboleedka Hirshabelle waxay wada ahaayeen gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Mahdaay iyo sidoo kale mid kamid ah bulshada ku dhaqan degmada Jowhar ee caasimada dawlad goboleedka Hirshabelle guud ahaan daawadayaal barnaamijka aragtisan iyo ogaal dadweyne waa inaga inta barnaamijka waxa idin la socodsiinaysay anigoo Sagal Siman Xasan Maxamed dhanka kaamirada waxa ii qaabeynay Yusuf Abubakar Ibrahim sidoo kale dhanka farsamada waxa ii qaabeynay Umar Guux intaynu kaga kulmayna barnaamijkan kiisa xigana isma dhaafno